so and waxaan filayaa in uu record gareynayo so okay and labada qodob aanu maanta ka hadlayno casharkeenan wuxuu noqonayaa k level ama sub level ama qayb kamid ah levelada tan labaad aanu ka hadli doono oo tusaale raadin doonana waxay noqon doontaa spike ama madax kala bixid so yani spike uu kala sii kala qaybsamaa so madax kala bixid ayaynu u bixinaynaa madax kala bixid so labadaas kaliya kala bixid so labadaas qodob oo kaliya ayaa waxay jira dad markaasi iyagu raadinaya kaliya labadaas qodob ama qodob kamid ah raadinaya markay helaana trade-kooda qaadanaya og in ay tahay wax hagaagsan madax kala bixid marka madax kala bixid haddaad aragtid inta badan waxaanu niraanaa 90% in madax kala bixitaas uu sax noqonaya hadii uu madax kala bixitaas soo baxo marka madax kala bixitaas laftirkeeda qaybo kala duwan noqon la yeelanaya waynu soo qaadanaynaa so hadaynu ka hormarno marka levelada dadku inta badan waad aragteen waxay ay sameynayaan qaarkood trend line support this line way jirtaa supply iyo demand oo isaguna sidaan hadda wax u sawiri doono u sawira balse wuu ka duwan yahay kani waxaanu sameynaynaa level lacagtu sida ahaan level ay kala leedahay yani waxa jira marka price iyo level price wuxuu noqonayaa exactly marka line kan malo deetana aan iraahdo 1.35 yani this is the price yani and price buu noqonayaa laakiin so level ka markaan sawirayno waxaan ugu yeeranaa zone kana macnihiisu waxa weeye ma ahan price macnihiisu waxay tahay wuxuu u dhaxeeyaa price yo so okay so marka waxaanu tirtiraynaa hadirtaan line-kii lacagtu markaas sideeda ahaanba siday u shaqeyso waa sida tan waxaanu isku daynaa inta bal inaynu ka dhigno inay tahay lacagtii markay soo taabato sell ha ku qaldin supply iyo demand ko kaleeto sawirka baan u ekaanayo so waa supply demand uu noqonayaa maxay la supply demand waa sell iyo buy balse waa strategy ka duwan so lacagtuna hoosteeda okay halkan hoose lacagtu markay joogto waa buy sida aan naqaano waa waxaan ugu yeerno support ama flow ay joogtaa dhulkii halkan korna waa resistance waa lacagtii roofka meeshii laga soo celinayay marka lacagtu inta badan it repeats yani way ku soo celinaysaa price-kii ama system-kii ama qaabkii ee markaasi ahayd marka muxuu noqonayaa k level-kan aynu raadinayno k level-kan aynu raadinayno wuxuu noqon karaa mid higher time frame aad ka raadin kartid mid aad ka raadin kartid smaller time frame anigu waxaan jeclahay 4 hour-ka inaan inta badan ka raadiyo anigoo markaasi laga yaabo trade-ka intaan 4 hour-ka ka raadiyo ay markaasi 1 hour-ka uu isiyo entry point-geeda laga yaabo 1 hour-ka intaan ka raadiyo 15 minutes-ka entry point-geeda inuu siiyo marka lacagtan tan hadda aanu u jeedno meeshan aan u jeedno oo aynu dhahnay support weeye hore waxay u ahayd resistance taas waa iska caddahay so marka maadaama resistance lacagtan ay hore u ahayd lacagtu ayadoo live ana waanu tagi doonaa laakiin saadirtaan sawir ahaan sidaad u fahantaan muhiimada ugu weyn lacagtu sida ahaan waxa weeye waa sawir saas u soconaya so sida ugu soconayo ayuu wuxuu imaanayaa resistance-ga marka horeeto resistance-gaas markuu jibiyo ayuu marka dambe resistance-ga ama level-kan maadaama level-kan uu ahaa markii hore sell uu soo jibiyey lacagtii way sii soconaysaa oo maxay sameynaysaa way ku soo laabanaysaa lacag haddii ay zone-kaas jibiso ay ku soo laabato waa lacagta ugu fiican 85% aan dhihi karno waa lacagtaas inay aadayso jihadii loogu talagalay way jiraysaa marmarka qaarkood inay sidan soo tiraahdo ka soo laabato laakiinse waa in aad ogaataa maxay tahay lacagtan rejection inay hesho waad u baahan tahay si aad kor ugu gashid haddaysan rejection helin diidmo oo inta laga diidin oo kor
kor in loo riixa aysan isku dayin price-ku macnaheedu maxay tahay lacagtii way soo drop gareynaysaa way soo daadanaysaa marka ay soo daadato lacagtii maxay sameynaysaa waxay sameynaysaa in ay ku laabato marka muhiimadu maxay tahay waxa raadinaysaa zoonkaas lacagtan zoonka ama kor ha u jibiso ama hoos ha u soo jibiso labadaas mid baa raadinaysaa sidoo kale waxa raadinaysaa oo ugu muhiimsan waxay tahay lacagtu haddii ay ka timaado inta ee sidii u soo socotay level aad hore u samaysatay bay taabatay waxa xaqiiqo ah in ay soo dhacdo ama ha soo dhacdo 30 bib ama 40 bib ha soo dhacdo maxaa yeelay levelkaas aad samaysatay waxa laga yaabaa in ay dhowr jeer horeeto laga soo celiyay so marka hadeertaan waxaynu sameynaynaa tusaalihii ugu horeysay oo aynu wadanay okay sidaasna way noqon kartaa laakiin waxaan filayaa inaan aniga sameeyo aan ku wacanahay so qof baa noo qoray balse waa laga yaabaa sidaas inay noqon karto waa yacni wax macquula balse isku day waanu ku casuumaynaa haddii aad jeceshahay mar insha allahu tacaala so anyway lacagtu way soo baxday halkan bay support ka dhigatay taasi macnaheedu maxay tahay level halkan zone bay noo noqonaysaa zonekaas ay noo noqotay lacagtaas zonkii kale bay soo daabanaysaa zonkan kale markay soo taabato waa laga yaabaa inay ku laabanaysaa way ku sii laaban kartaa kadibna markaas ka bacdi bay soo dhacaysaa so taas macnaheedu maxay tahay lacagta waxay u dhaxaysaa laba structure laba zone dhaxdooda muhiimaduna waxay tahay inaad labadaas zone fahantid oo si aad markaasi inaad entry point-gaaga qaadatid aad u ogaatid so marka aynu niraano waxaynu rabnaa zonkii 4 hour inaynu raadino ama 1 hour ama 30 minutes laakiin so ogsoono mar walba higher time frame zonka aa sawiratay wuu ka adkaanayaa waxaynu raadinaynaa sub levelkaas marka ugu horeyso bal in aynu tusaalooyin live ah aragno waxaynu ku xiran tahay lacagta markaasi aad trade gareynaysid in ay tahay lacagtaas ma midda leveladan respect gareynaysaa level inta badan way respect gareysaa 75% 80%. So higher time frame markaynu joogno hadda euro AUD ba iska soo qaadanayna tusaale ahaan euro AUD markaan soo qaadano waxaanu leenahay waxay waxaanu u sameynaynaa lacagtu kor bay ka timaaday kor markay ka timaaday way soo degtay meeshii ugu hooseysay ay gaartay bal aynu fiirino meeshii ugu hooseysay ay gaartay waxa weeye meeshan so taas macnaheedu maxay tahay levelkaaga waxaad dhihi kartaa sidaan oo kaleeto waxaad sugtay inay lacagti dib u laabatay si lacagtaas dib markay ugu laabato meeshaas aad u ogaatay levelka labada zone ay lacagta u dhaxaynayso 4 hour baynu hadda tusaale ka qaadanay waxaan isku daynaa 1 hour in aynu tagno waxaan u maleynayaa lacagta hadda si fiican u arki kartaan waxay samaysay lacagtii way soo dhacday meeshii levelkii ugu hooseysay ay gaartay waa halkaas taas macnaheedu maxay tahay halkaas levelkii baa samaysanay way soo laabatay waxay ku soo laabatay levelkan bay samaysatay levelkan markay samaysanaysana iskamaysa samaysan bay waxay ku samaysatay xigmaddaas haddaa sii tixraacnana waxaanu arki karnaa halkan inay tahay lacagta meel markaasi kor looga celiyay so haddii aan dib u sii raacno waa arki karnaabal inkastoo nagu fogaanayso so levelkana siduu power u leeyahay okay halkan levelkan inay markay samaysanaysay waxaad u jeedaan in tusaale ahaan halkaas ay ka soo bilaabantay inay levelkan soo samaysato
ilaa haddana ay xushmaynayso. So lacagta marka 4 hour higher time frame maadaama aan soo fiirinay waxaad samayn kartaa in aad lower time frame timaadid deetana aad sugtid touchka koowaad ama touchka koowaad la qaadatid maxaa yeelay mar waliba lacagtaas waad qaadanaysaa ama touchka koowaad haddii ku dhaafo touchka koowaad ku dhaafo kii labaad baa imaanaya. So lacagta haddana mar labaad bay hoos usoo dhacday levelkii hoose bay soo gaartay maxay samaysay consolidation yariis ay samaysay. consolidationkaas waxaa rabtid ugu yeer macallimiinta kale waxay rabaan ha ugu yeeraan muhiimaddu waxay tahay levelkii bay ka sareysaa ama zonekii aan samaysanay bay ka sareysaa. markii kale ay kusoo laabatay maxay samaysay lacagtii way duushay isla markii levelkii bay ku laabatay. haddii aan markaa samayn lahayn maanta support iyo resistance ama waxaan ugu yeeraynaa line price samayn lahayn waxaa laga yaabi lahaa lacagtan inaysan pricekan soo taaban lahayn balse levelkii ay soo taabatay. taas micnaheedu maxay tahay ardayga markaasi ku cusub waxa u fudud in uu leveladaas saas u samaysto si tradekiisa uu u noqdo mid profitable ah. So hadda lacagtan euro AUD hore umaanan arkin in ay sidaan samaynayso waa wax hadeertaan si toosa u wada samaynayna. So lacagta dana way soo daadatay levelkii maysan jebinin. So levelkii maadaama aysan jebinin levelkan lacagtan sell baad u gali lahayd. So si aadan sell ugu galin waa in aad exactly kandalada sii eegtaa oo tiraahdaa lacagtan ma tahay mid sidii hore samaysay mise waa mid aan sidii hore samaynin. yani lacagtan maadaama hadeertaan ay kor u kacday halkaana ay hoos u degtay why ay hoos ugu degtay sababta ay hoos ugu degtay waxay tahay waxa halkan idinka muuqda in kandalada marka hore levelka ay xushmeynayeen intaan oo dhan laakiin soo ay sameynayeen lower inay sameynayeen inay hoos inay kandalada inay kasii yaraanayeen ay momentumkii kore uu luminayo lacagtii. maadaama momentumkii kore uu luminayo oadna u jeedid in lacagtan ee marka ugu horeysa power ku timaaday bay ku timaaday awood bay ku timaaday markay imaanaysay awooddan ay ku timaaday way lumisay in ay sii soco inay kor aado. halkan waxaad kaaga muuqdo in awoodda ay inta ku joogtay iyo awoodda ay inta lagu celcelinayay in awoodda inta lagu celcelinayay ay fogeed yani ay waqti dheer kandala badan soo baxeen. sidaas daraadeed uma qaadanaysid levelkii ma isticmaalaysid oo waxaad leedahay kandalkii baan sugaya ama waxaad qaadan kartaa maadaama tradeka riski uu yahay markaad qaadatid waxaad samayn kartaa maadaama aad ogtahay lacagtan haddii levelkan ay jebisay inay hoos u dhacayso waxaad oran kartaa intaad kasoo gali kartaa meesha ugu hooseyso. haddaad aragtid in kandaladii ay badanayaan consolidationka uu badanayo consolidationkana uu powerkiisa hoos u socdo maadaama kandala badan ay istabadaxaan waqtiga yani kandalada ay sii kala hooseysayaan waad gali kartaa marka kuugu horeysa halkan baad ka gashay markaad aragtay kandalada inay sii soo socdaan oo waqti qaadanayso waad ka bixi kartaa. haddii kandalka uusan waqti qaadan lacagta meesha kale ku laabanaysaa. haddii hoos ay usoo dhacda maadaama level meeshan uu ahaa waxaa waajib ah 80% waxa waajib ah in levelkaas ay consolidation ku samayso. haddaysan consolidation ku samayn kor bay aadaysaa. hadday consolidation ku samaysa levelkaasna hoos bay usoo dhacaysaa. intaan sii gudbin waxaan isku dayayaa bal in aad wada fahanteen iyo in kale intaan hadda idiin sharaxay just zonka sida loo sawirto sida tradeka loo qaato zonkaas intaas may la fahanteen. haddaydan ila fahmin si aan idinku celiyo haddaad ila fahanteen haa ii soo qor. ما فهمتين. اوكي ما فهمتين.
so aad and tusaale kale miyaad doonaysaan oo isla levelada waxaan isku daynaa inaan tusaale kale sii bixino si u sii xaqiijisano lacagtan waan ka tagaynaa maadaama aan ku ciyaarnay so bal USD card baynu fiirinaynaa so USD card waxaynu sameynaynaa exactly waxa aan ku sameynay lacagtii ka horeysay maxay sameysay lacagtii ka horeysay way soo dhacday markay soo dhacday meesha ugu hooseysay ay gaartay tusaale ahaan meeshan baa kala qabsatay lacagtu wax aynu dhahno lacagta halkan baa kala qabsateen so waxaad aragteen meeshii ugu hooseysay ay ahayd xagee bay ahayd meesha ugu hooseyso ay joogtay waa halkan ay ahayd meesha ugu hooseysay ay joogtay halkan ay ahayd so marka ay halkan ahayd halkan aan cabirayna sidaan u cabiranaynana oo intaan aan soo gaarsiinayno ma ogin intaan kale in ay dhacday waxa geeskan ka jira oo dhan inay dhaceen kama warqabno so zonki kalena waxaynu leenahay maadaama markay soo dhacday zonki ugu horeeyay ee gaartay halkaas ay ahayd halkaana lacagta inaan ka warqabin waxay dhacay waxaynu raadinaynaa sideeni lacagta maadaama levelada ama structurada qof baa qoraal soo qorayo bal aan isku dayo maybe in su'aal ay jiri karto okay su'aashaas waxaan jeclaan lahaa inaan dib u dhigno waxaan ku wareeray consolidationka markuu jiro waxaan jeclaan lahaa inaad dib iigu dhigtid oo aan dhamaystiro kadibna aan su'aashaada ka jawaabo so bal fiiril sida uu trade-ka yahay fiiril waxaad kaloo eegtaa cashirkii aanu soo qaadanay last week oo ahaa lacagta high low aanu soo qaadanay maanta markaaynu isku dabaqno levelkii iyo high lowgii qofku trade-ka si easily buu u qaadanaya si fudud buu u qaadanaya si aad iyo aad u fudud so exactly waxay dhacay lacagtu meesha ugu hooseysay tagta waa tana waxaan maadaama 4 hour aanu joogno trade markaa qaadanaysid waa inaad lower time frame sii tagtid si aad entry pointigaaga u heshid so waa tusaalihi aan tusayo oo consolidationka inaad fiirin kartaan iyo lacagtan power may ku timid meeshan mise waxay ku timid power la'aan so halkan markay timid halkan waa ka soo celinay lacagtana intay joogtay lacagta intaan maysan dhicin lacagtan waxa dhacday inay timaaday inta kala qabsatay waxaad og tahay levelkan in aad buy ka dhehaysid so levelkan baa buy tiri adiga oo raacaya lower time frame-ka fiirinaya lacagtan ma consolidationkiisa ma mid hoos kuugu muuqda mise mid kor kuugu muuqda oo macnaheedu tahay kandalada cashirka kandalada insha Allah waxaan filayaa in ustaad Tawakkal cashirka kandalada uu ku qoran yahay cashirka kandalada ayaa wax kale ka sii baran kartaa laakiin adinkoon kandaladii sii baran baad waxaad ogaan kartaan kaliya lacagtan meeshan ma xoog bay ku timid ma tartiib bay ku timid ma meeshan consolidation bay ku jirtaa so lacagtan buy baa u gashay laakiinse maysan gaarin targetkaagii muxuu ahaa targetkayga halkan sababta ay targetkan u gaari weyso marka maxay tahay sababta ay targetkaygaas u gaari weyso maxay tahay waa inaad og tahay waa inaad og tahay sababta targetkan kore ay u gaari weysay markaynu eegno sababta ay u gaari weysay waxaa noo caddaatay in halkan khilaaf uu hore ka jiray meeshan uu kay level kale ka jiray what the hell waa tusaalaha ugu macaan oo aad u soo qaadan kartid qodobkeena labaad oonu ka hadli doono oo ahaa madax taagasho qodobkaas hadda ma sii galay laakiin waa tusaalaha ugu macaan so maadaama ay gaari weysay halkaas oo aad og tahay inta in level cusub uu ka samaysmay mar waliba lacagta waxaad fiirinaysaa maxaa kaa xiga geeskan xaggee wax laga soo celin karaa
haddii lagaa soo celiyoba ka soo qaad halkaas ogsoonow inta bib aad halkaas ku haysatid waa 300 oo bib ku dhawaad uma baahnin 300 oo bib balse levelkan baa laga soo celiyay maxaa halkaas kaaga muuqday in level halkan uu ka samaysmay so levelkii kore igara lahada levelkii kore wuxuu noqday yani mid aan hadeertaan active ahayn waxa ka active sanaaday level hoose oo halkan ka soo samaysmay lacagta xisaab maahan ma ahan wax la xafidayo waa just sawirro aad xafidaysid waa just pictures aad ogaanaysid sida ay u eg yihiin markay soo baxaan inay sidaas noqonayso so halkan levelkii ka soo qaad waxaad ahayd qof aanan fahmin levelkan in uu jiro oo lacagtii waad ku sii jirtay lacagtii adoo ku sii jira way soo dhacday kor bay u soo laabatay exactly zone-kii bay ku laabatay marka indhahaagu waa inay shaqeeyaan aad tirahdid okay halkan waa 4-hour zone 4-hour zone weeye halkanna waa laga soo celiyey sidoo kaleeta lacagtan waxay samaysay laba jeer laba touch bay taabatay waanu u imaan doonaa double top baa la yidhahdaa laba jeer bay taabatay taas micnaheedu maxay tahay waa inaan lacagtan ka baxaa inaad garatid waa inaan lacagtan ka baxaa si aan seel ugu galo caqligaaga waa inuu ku siin karaa inta laga soo celiyey halkan madax taagasha ka dhacay inta waxaa ka dhacay laba jeer oo touch ah zone-kiina zone baa ka hoos maray taas micnaheedu maxay tahay waa inaan ka baxdaa hoos soo raacdaa waa tusaale kale haddaynu sii raacno zone-keeni waxaynu dhahnay zone-ka haddii uu jibiyo uu zone-kii intaan dhanu zone ahaa halkan zone-kii baa soo yimaade mar kale wuu soo taabtay wuu soo jibiyey zone-kii u taabtay taas micnaheedu maxay tahay lacagta seelgare oo qaado lacagta haddaaba aragtid zone-ka inay taas dhacday seelgare qaado lacagta gurigiina u qaado noloshaada wax uga bedel just xafid sawirka keliya just xafid sawirka keliya zone-kan haddii aanu sii wadno ma gaarayno dhammaadkiisa so tusaalaha labaad ma fahanteen maan doonaya inaan cashirka badiyo ma fahanteen tusaalaha labaad okay waynu gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa qodobkii labaad ee madax taagasho firib waxaanan maanta idin barayo waa wax dadka qaarkood ay ku qaadato waqti badan inay fahmaan balse haddii markaan kuu sharxo kadib aad trading view-gaaga intaad furatid ku celcelisid ilaa aad sawirkii la qabsatid in indhahaagu isla markay arki karaan forex school baa ka gaaraysaa adigoon wax kala baranin so waxaynu samaynaynaa qodobkeeni labaad baynu galaynaa lacagtii hadda aynu ku qorayna waa euro ud bay ahayd baan filaya qodobkeeni labaad baynu galaynaa so waa tirtire okay so anyway dib ma lahan qodobkeeni labaad wuxuu ahaa qodob aynu ugu yeelnay madax ama spike ama madax taagasho kanalada spike way sameeyaan iyaguna yani spike macnihiisu waxa weeye wax saas u dheer so madax taagasho so madax taagasho macnihiisu waa maxay madax taagasho waxaa jira marka madax taagasho wuxuu xushmeeyaa line madax taagasho line-kan buu xushmeynayaa madax taagasho line-kan buu xushmeynayaa sidan buu u ekaani karaa so waa maxay madax taagasho waa lacagta aad haddaad aragtid anytime frame waa ku aragtid ay tahay 89% lacagtaas ay guarantee tahay yani ay tahay wax 90% la hubi karo so waana waxa ugu badan haddaad aragteen dad fara badan oo trade gareynaya ay ilaalsadaan waxaan hadda idin sharaxayo yani sida caadiga free ma ahaateen
balse waxaan doonaynaa inaan impact garayna dadka noloshooda anaga aqoon keliya noogu imaanaysaan aqoon wixii inaad isku filnaatid so madax taagasho micnaheeda waa sida lacag baa hoos ka timid so lacag baa hoos ka timid ama kor bay ka timid any yani mid kaa rabtid hoos bay ka timid oo sidan bay usoo socotay why sidan u sameynaya okay sorry mousekeyga inaan hagaajisto so waxaan filayaa inaa ila socotaan waan rajaynayaa inaa ila socotaan so lacag baa hoos ka timid lacagta sideed ahaanba sidan bay u socotaa yani ama sidaan u socoto sidan bay u socotaa maan leenahay so lane bay samaysatay lanekaas kama warqabtid markaas ay samaysanayso kama warqabtid laakiin indhahaagu waxay furmi doonaan marka laneka kale ay u dhaco so lacagtan way baxday spike yani madaxay la baxday way soo laabatay madaxay la baxday so halkan inay taabatay baynu ka dhigaynaa inay lacagtu way taabatay haddana way soo dhacday deetana halkan bay spike samaysatay markay spikean samaysatay lacagtan laba mid weyn in meeshan ay respect garayso hadhowti ama inta in ay respect garayso way soo dhacday lacagtii waxaad ogaatay in lacagtii zonka ama lanekaas aad samaysatay ay kasoo hoos martay ma gelaysid waad sugaysaa waxaad sugaysaa lacagtii inay kusoo laabato meeshan yani halkan ay kusoo laabato this is head and shoulder ha ku qaldin head and shoulder yani garab iyo madax iyo laba garab iyo ha ku qaldin tan waa mid ka duwan lacagtii way soo laabatay halkan bay taabatay deetana lacagtii markay halkan soo taabatay aad ogtahay inta inay marka hore taabatay halkaana ay spike samaysatay lacagtaas waa lacag macaan way degaysaa waxay kaloo samayn kartaa isla qaabkan waxay kaloo samayn kartaa way soo degi kartaa lacagtan waa inaad ogaataa laynkan iyo laynkan waa laba layn oo jaranjaro kala duwan so labada jaranjaro kala duwan kan waa kan sare kanna waa kii hoose kan tusaalihii horan soo qaadana waxay kan bay taabatay so waa inaad ogaataa lacagtan inay saan samayn karto laynkan ay xushmayn karto aysan gaarin laynkan kale sidee bay ku dhacaysaa marka inaysan gaarin because waxay ku dhacaysaa laynkan waxa ogaanaysaa geeskan haddaad sii raacdid labadan zone aan sawirnay kan iyo kan inuu kan power weyn yahay so ama in dadka brokerka laftirkiisa uu markaas manipulation ku samaynayo si uusan active uga dhigin kan ay lacagta hoos u sii dhacdo tusaalahaas qoraal ahaan wey waan soo gebagabeynaynaa waxaan isku dayaynaa inaan spike lacag ah raadino ama helno so lacagtan sidaan so fere chfgbY saastaan ugu dhuftay indhahayga waxay soo qabteen spike ma jira qof meesha ku jiro hadda codka furi karo oo spikaasi tusi kara wala cabsanaya qof baa soo galaan cabsanin so anyway waan fiirinaynaa spikey wala la codka ka go'ayo so dhib male isku daynaa inaan so halkan yani indhahaaga laga rabaa yani inaad raadis maxay spike so kasoo qaad trade-ka
halkan buu marayay yani halkan markuu marayay baad ogaatay in halkan madax la baxay madax inuu la baxay waxa umaleynaya inaan arki kartaan meeshan يعني haddii 4 hour aad ku aragtid 1 hour waa ku arkaysaa calaamadda aan idiin sheegay 15 minute-na waa ku arkaysaan calaamadda aan idiin sheegay tas macnaheedu maxay tahay anytime way kusoo laalaabanaysaa wixii sawirka 4 hour aad heli kartid waad heli kartaa anytime frame hadda 1 hour buu weeyaba 4 hour ba maahan so halkan waxa dhacday halkan ma isla aragnaa in aanu sawirkii hore aan idin tusayo kaleeto ay meeshan ka jirto maxay samaysay lacagtan way soo baxday intay taabatay way laabatay wax yar kor spike bay samaysay way soo laabatay wax yar bay ka kor martay lane-kii hore exactly yani maadaama anaga zone aan isticmaalayno yani line aan isticmaalayno zone haddaa isticmaalayso waxaa ogaanaysaa lacagtan inay hoos soo dhacayso maxaa yeelay zonekaaga this is zone يعني zone kan so waxa u jeedaa lacagtan inay intay soo dhacday ay mar labaad soo taadatay halkan maxaa ka dhacay dad baa trade gareeyo lacagti qaatay so okay and bal aanu fiirino inaan hal tusaale kale helayno and anytime 15 minutes baan isku daynaa bal inaan tusaale ka helno so 15 minutes inaan tusaale ka helno يعني tusaalaha wuu badan yahay يعني tusaale hadaa raadisid kun tusaale helaysa يعني spy in aad madax taagasho ilaalisatid waa wax ayaduna markaasi trade-ka ku siinaya chance aad trade gareyn kartid waxaad aragtay in maxay la madax taagasho waa maxay way aan madax taagasho ay kan u tahay haddii aad isweydiisid oo u jeedaa in madaxan u taagmay madaxan yadan ka hooseeya ay timid madax taagashada ay samaysatay yani dhowr jeer bay ku laalaabatay weliba way soo dhacday so any time frame waa ka arki kartaan muhiimadu ma ahan inaa maalin walba helaysid laakiin any time frame waa heli kartaa any time frame waa heli kartaa yani muhiimadu waa inaad haysataa sawir aad sawiratay sawirkaas oo ku siin kara chance 90% ah haddii tusaalaha 90% uu ku siinayo waad sugi kartaa patientiga macnihiisa maxay tahay ma ahan in lacagta kuugu jirto aad inta ka luminaysid oo dhan patient aad haatid dulqaadatid ee macnaheedu waxay tahay inaad sugtid intaas baan kusoo gabagabeynayaa su'aalaha haddii jiraan haddii su'aalo jiraan inaan soo koobno aynu isku dayno ma jiraa qof su'aal ka qaba ma jira qof waxaan idiin sharaxay su'aal ka qaba موسى كمان أركع معلي أوكي موسى كمان أوكي ما فاهمين ما يسلف عن إنتاس أوكي هدايسن wax su'aalaha jirin scalping miya mise so scalping hadii haya time frame aad fiirin karto waxan waa sawir aan idin baray sawirkaas yani sawiradaas aan idin barayo waa sawirro la rabo inaad maskaxdiina ku save garaysataan suuqa ma ka hel dhacdeen sawiradan sawirkaas hadduu dhacayna aad qaadanaysa any time frame 15 minute scalping lama dhigi karo waxa laga yaabaa scalping waxaan u garan karaa markii aad raadinaysid 5 bip oo inaad rabtid inaad lumisid 10 bip waa scalping ka waalna ama 10 bip baa raadinaysaa 10 bip laakiin se tusaalaha hadda idin tusay waa kuwa 400 oo bip 300 oo bip 100 bip 50 bip intaba